We the best. Another one. Tita Adde. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aniga walaalkiin Maxamed Xasan. YouTube-ka daawanaysan waa Tita Adde channel meel walba dunida ka joogtaan. Isi walba muuqaalkayga idin soo gaari doona. Niyad samee kalgacal ugu soo dhawaada YouTube channel-kayga waa ku mahadsantihiin. daawashada fiidiyoda aan soo geliyo fadlan haddii aad ku cusub tahay ama ay ku tahay booqashadaadii koowaad ama aad subscribe laan daawan jirtay daawade waxaan ka codsanayaa inaad subscribe saarto channelka gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaaladii ugu dambeeyay fiidiyogana like saar aad iyo aad u mahadsantiin intaas oo dhan lacag ma waa free sida caadi dhaqankeedna ku soo dhawaada muuqaal cusub muuqaalkan waxaan rabaa inaan uga hadlo qof aan isleeyahay Janice uma helin asigoo yar in uu maskaxdiisa iyo qalbigiisa ay la korto waxbarasho dugsi iyo iskool ah aysan Janice-kaasi u helin qofkaas aan isleeyahay weynaan ayuu wax ku bartay ama telefoonka ayuu ku bartay sida wax loo qoro runtii labadan beri barnaamij ayaa ka jiray social media oo u dhaxeeya Dirisle Cabdi iyo Rashka Boy oo labadaba ah laba dhalinyaro Soomaaliyeed oo ah hadan laba YouTuber arintoodana anaguna waan ka hadlaynay oo waa ka falcelinay oo analysis aan ka sameynay oo waa sharxina sida wax u dhaceen shacabka ama bulshada Soomaaliyeed ee daawata ayaan wixii karaankeena ah ama fikirkeena ah u soo gudbinayna markay taas dhacday kadib qof kamida dadka ku xiran social media ayaa wuxuu comment igu soo qoray subscribe-ka waa ku saaray Dirisle Cabdi dartiis ayaan kuugu saaray runtii ereygaas kama aanan helin ma jeclaanin waan necbeystay waana ka carooday weliba aadan uga xanaaqay waan ka gudbay haddana xalay ayaan waxaan sameeyey video marka aan xalay video sameeyey haddana mar kale ayuu comment ii soo qoray oo kii hore wax yar ka duwan kii hore wuxuu waa ku saaray Dirisle madaxiisa aan kuugu saaray kii xalana wuxuu ahaa Dirisle madaxiis ayaa subscribe-ka ku heshay xanaaqi kii habeen hore kii xalay ayaa ka sii xumaaday waa ka sii carooday oo waa ka xanaaqay sababta aan u xanaaqin wax kale ma ahan maxaa yeelay aniga soo fariisto meeshan waxaan ku weydiistaa daawade hadiiba aad ku cusub tahay YouTube channel-kayga ama aad subscribe la'aan i daawan jirtay inaad subscribe saarto channelka oo gambaleelkana furato si ay kuu soo gaaraan muuqaalada ugu dambeeyay afka aan ku hadlaayo af noocee waaye German miya Ingiriis miya Mareykan miya Czechoslovakia miya Soomaaliya ma aho maxaan kugu weydiistaa aniga Soomaaliya maxaan wax kugu weydiistay afka Soomaaliyeed oo noo ah astaani dhaqan hooyo afkooda maan kugu weydiistay mise waxaan kugu weydiistay af dad kale leeyahay maxay tahay marka waxaa meesha ku soo qoraysid maxay tahay ii sheeg brother nin weyna ilaahay ka dhigay aqliyaad leedahay social media daawataa sida wax u socdaanaad fiirsataa waxaad ku keentay in aniga qof kaloo asaagay Soomaaliyeed ah inaad ii dhahdid dartiis ayaan subscribe kuugu saaray why maxaa kuugu kalifay ii sheeg aniga subscribe-ka anaa ku weydiisto haddiiba subscribe-kaagu uu yahay mid shakhsiyaadka YouTube-ka mid ka mid ah dartiisa iigu saarayso ama iigu saari doonto waxaan kaa codsanayaa si naxariis leh weliba ha iga saarin channel-kayga sababtoo aniga subscribe gadaal laga wato oo dad kale leh channel-kayga uma baahna channel-kayga uma baahna xoolo channel-kayga uma baahna eeyo channel-kayga dad buu u baahan yahay nadiif ah qalbi Soomaaliyeed oo wanaagsan leh dad la diro uma baahna channel-kayga dad la adeegsado uma baahna dad aqliga ku yiriya uma baahna dad xoolo ah uma baahna seriously aniga waxa u baahanahay waa dad Soomaaliyeed qof niyad Soomaaliyeed leh qof dhiig Soomaaliyeed leh qof dareen Soomaaliyeed leh qof wax bartay oo aqli u saaxiib ah aan u baahanahay qofkaasaan aniga wax u sheegi karaa
aniga doma menson wax mu u sheegi kari ignorant person wax mu u sheegi kari wax u sheegi karaa waxa waaye qof caqli u saaxiib ah qof dareen wadaniye Soomaalinimo ku jirto u saaxiib qofkaas aniga wax u sheegi karaa marka aniga way igu soo khaldoontay seriously aniga another one ahay xaniidadu kuma joogi social media xaniyeegan ku jooga oo aan saaranahay Soomaalida markii qof aan ka soo falcelisid ama qof aan ka soo falceliyo waxa kaliya ay ka fikiraan ayaa waxay tahay si qofkaasi aniga uu igu soo falcelin lahaa ama uu jawaab ii siin lahaa si aan aniga subscribe cusub u helo laakiin aniga weligay qaabka noocaasi qof uguma aanan falcelin konton youtuber Soomaaliyeed ayaan budget iyo barnaamij ay leeyihiin ka falceliyay hal mid oo ka mid ah youtuberadaasi igama soo falcelin sababta maxay tahay misweydiisay sababta waxay tahay aniga iskama hadli laakiin war ma haray ayaan u hadlaa boontiga ereyga iyo qofka dhaliisha uu leeyahay sida aan u dhaliili lahaa iyo sida barnaamijkiisa aan uga hadli lahaa ayaan aqoonteeda leeyahay sababtoo ah aniga waxaan hadlaa aqoonteeda ee ma iska hadlo oo uma hadlo hebel ha kuu soo jawaabo oo subscribe ka hel ha lagu barto uma hadlo laakiin waxaan u hadlaa dhexdhexaadnimo inta caqligeyga isiyo iyo dareenkeyga iyo aqoonteeda ayaan falceliyaa marka aniga ha igu soo khaldoomin haddii subscribe-kaaga uu yahay daawade mid shakhsiyaad leeyahay oo dad islaameed dartiisa aad channelkan ku joogtid oo aad subscribe-ka u saartay aniga ma aha noocaas dadka lagu ribeeye waagayuu kugu baryin channelkeyga ii nabadgeli aniga iskale channelka waa codsi channelka aniga iskale haddii dirisle uu leeyahay subscribe-kaaga hadda balla laabo haddii CK uu leeyahay subscribe-kaaga hadda balla laabo haddii Rashka Boy uu leeyahay subscribe-kaaga hadda la laabo haddii shakhsi youtuber ba uu leeyahay subscribe-kaaga uusan ahayn subscribe Soomaalinimo ah ku saaratay la laabo wallahi billahi tallahi uma baahni subscribe shakhsi leeyahay uma baahni sababtoo ah baahidaasba imeyso sababta YouTube-ka baahidaasba ima keeninba oo aniga aan shakhsi islaameed youtuber ah aniga aan u hoos fadhin lahaa in aan subscribe dartiis ku helo baahidaas imeyso waxaan igu dhacay marka Soomaaliya xoolee naqatay meelaa lagu wada xirxirtay waa ogahay ma diidani CK aan ii sheegay oo niiri ari aan tirsadaa tihiin ina ari tihiinna waa la ogaaday waana la arkay laakiin anigu ari uma baahni xoolana uma baahni eyna uma baahni waxaan u baahanahay dad waxaan u baahanahay nadiif ah niyad leh wax dhaliili kara wax wanaajin kara laakiin uma baahni nacamleeye uma baahni xoolo meel lagu xirtay uma baahni dirisle waa shakhsi Soomaaliyeed waa youtuber cadowtinina nagama dhaxayso anigana wax uu ii qabo ma lahan anigana waxaan u qabo ma lahan haddii laga gardaran yahay in laga gardaran yahay waan caddeynaa haddii laga saxan yahayna in laga saxan yahay uu asiga gardaran yahay waa caddeynaa marka maanta haddii dirisle in laga gardaran yahay aan caddeeyo subscribe igu saarto beri waa dhaliila oo inuu gardaran yahay aan caddeynaa sababta waxay tahay waxaan ahay qof xor ah fikirkiisana xor u ah aanan cabsanin gambanin hadal yaqaan ah aan lagu tuman karin aan lagu jeesjeesi karin sababtoo ah markaan hadlaayo ayaan waxaan hadlaa aqoonteeda taasaa keenaysa inaysan qof youtuber ah jaanis oo iigaga soo falceliyo uusan u helin waxaan u diidaaba marka hore meel dulduleela oo beri uu igu qosli karo mar kasto
taxadar iyo tilaabta aan qaadayo waa mid maskaxdeeda ay ka socoto. maskax qof islaameed ma ka socdi. marka brother and sister, haddii subscribe-kaagu uu yahay subscribe dad leeyahay, please and please ha saarin channelkayga subscribe. haddii aad subscribe saarta channelkayga adigoo subscribe-kaagu dad leeyahay, akhtiyaarkaaga u saartay, ani iima aadan saarin. marka waxaan leeyahay soomaalinimadu ha shaqayso. soomaalinimada haddii shaqayn weysane dee ha iga saarina subscribe channelka. subscribe la isku ribeenaayo ya aniga qof cambuulo ku casheeyey ani subscribe soo igu ribeenaa. qof asigaba caawo ya joodarigu uu seexanayo welwel ka haysto soo ani subscribe igu ribeenaa. aqoon ma jirto ee aqoon ha jirtaan leeyahay. ilmihiina waxbarashada hooyooyinkood iyo aabood jaanis kuu siina ayagoo yar inay wax baraanne aniga afkaa ila soo gelin. iskoole aada wax barta, weliba si fiican wax u barta, jaaniskiina waxbarasho ku bixiya si dadka aad la dhaqmaysaan aad si wanaagsan ula dhaqantaan. qofka qoraalada soo qorayna videogan waa arkaysaa, waa daawanaysaa. xishoo waan ku leeyahay oo soomaalinimo isku beddel. haddii aa isku beddeleeninne janalkeygii nabadgeli. tani kulantideena dambena waxaan idin leeyahay soomaalinimo welcome. shakhsi gaar ah wixiisa ha iigu soo dhoweynin.